السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومدى الصوماليات ميل بيجوكت وانا سلامينا سلام كدب waxaa dhibaato laga soo sheegaya buuntadii halbowlaha waheeda ama shariicada الحياة magaalada Baardheere oo laga soo sheegayo inay maaragtay gabi ahaanba ay dunto maadaama maaragtay la waayay qof dayactirto ama dib u dhis ay ku sameeyso marka waxa cabasho soo gudbiyay ummadii Soomaaliyeed oo meesha ku nooleeyay sida video soo socdo aan wada daawan doono tan kale in madaariyaal maanta dalka dawlad kama jirto dawlad ku shaagana waa dad lacag malaayiin ku tagrafalay oo hantida ummadda iska boobayo malaayiin dollar maaragtay maamulada ay rabaan inay la wareegaan oo doorashada labada kulaadkooda inay ugu soo laabtaan sida galmudug oo kale ay ku bixinayaan meeshii la rabay in ummaddan wax loo qabto waxyaabaha daruuriga ah oo yaani laga maarmaanta sida buuntadan oo wax laga qabto waa la iloobi marka waxa buuntada ayaa ahal bowlaha ama shariicada الحياة magaalada Baardheere waxay isku xiraysaa buuntadan gobolada Gede iyo Jubbooyinka iyo Baay ayay isku xirtaa marka saas daradeeda Soomaaliya waxa loo baahan yahay inaan isxilqaano in la isxilqaamo oo ummadda maaragtay wax loo qabto ayaa loo baahan yahay maanta ciidan anagu ahayn u maqan ma jirto ummadda Soomaaliyeed waa ummad maaragtay ilaahay maaragtay dhibaato u keenay ilaahay maaragtay ku saladay dad madax sheeganayo oo dalkan waxba u qabanaynin dalka iyo dadka waxba u qabanaynin marka saas daradeeda waxaan idin ka codsanaynaa dadka gaar ahaan ka soo jeeda gobolada ama magaalada Baardheere inay isxilqaamaan anaguna diyaar baan nahay inaan garab istaagno diyaar baan nahay aniga ka sheeqala wahan waxa weeye ready baan nahay diyaar baan nahay wassalaamu calaykum halkan waa buundada weyn ee magaalada Baardheere ee gobolka Gadow waxa xilligan ka muuqanayo burbur baahsan oo saameeyay socodka dadka iyo gaadiidka isticmaala halkan waxay indhaha u qabanayaan godad halis ku ah isticmaalka dadka iyo gaadiidka isticmaala buundadan weyn ee magaalada Baardheere ee gobolka Gadow dadka deegaanka waan kula kulanay buundadan weyn ayaa bulshada Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ugu baaqay in buundadan ay qarka u saaran tahay inay goodo isla markaana la soo gaaro gurmad dhismo oo degdeg ah iyagoona intaasi ku daray haddii ay goodo buundadan ay ka dhigan tahay in iyaguna ay go'ayaan sidoo kale nolosha bulshada deegaankan waxaan u sheegayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha inta arrintan qusayso in dayactir lagu sameeyo buundadan oo dhibaatada jirto wax laga qabto haddaana wax laga qabanin waa lagu halaagsamaya mid kale waxa weeye halbowlaha magaalada Baardheere weeye buundada haddaana wax laga qabanin waxa weeye qasaaro badan baa ka imaanaya dadka ku daadanayo xoolihii baa ku daadanayo wallahi dhibaato weyn baa buundadan aan ku qabnaa aad bay u jajaban tahay dadka hadday isku tashtaan oo buundadan ay say u jajaban tahay wax looga qabto horumar weyn baa la gaarayaa hadda waa lagu hawlan yahay mar walba saan marka isbuuciba mar la joogaa saan loo sameeyaa marka hore jamcaan la suubin jiray dhibaatada ugu weyn maanta soo gaartay horta ma arkin waa ay burbursanaan jirtay oo hay'ada ay sameeyeen way jirtaa sii wad soo wad buundada Baardheere berihii baa taagan waa ibir hadday tii lugta haydo la mari lahaa tahay iyo hadday tii weynay tahay labadaba waa israaceen waa cid u maqan tahay oo cid wax tari kartaa jirto hadday dawladda tahay hadday hay'adaha wax sameeyo oo ay tahay oo localka ah wax alla wixii wax ku qaban lahaa dekadaas isku xiraysa ilaa Kenya iyo halkan waa ibir madaxweyne ra'iisul wasaare maxaa dhacay saan idin sugaynay idin weynay dumarkii carruurtii